بسم الله الرحمن الرحيم وولاشين قدر كيف وإذن للرمضان وناكسن ما أنتو حائدين وضع ملاير وصيح عسرية سنة وصمين آيو هنا إلا داوتانا جعليستي سو دوادا ملايقا سيقاب كان وصمين لها halkan waxaan ku haystaa malaay kiilo wax yar dhiman ah oo saan ah usoo jaray si dhaadheer ah aan usoo sameeyay marka qaabkan usoo hagaajinayo inta si doona iyo waxyaabaan ku daraayo la socod wanaagsan kana haddana malaay baaquligan ku shubtay soo geystay waxaan ku darayaa qaado bur ah iyo haaf yar ah oo bur aan kusoo darsaday waxaan kaloo kusoo darsanayaa meeshan xawaasho isugu keenay saddex nooc ah iyo maraq jumbo qudaar ka samaysan iyo cusbo yar oo shiidan huruud yar intoodii baa kuwan isku dhex darayaa waxaa kaloo halkan ku haystaa toon aan sheeg soo samaystay aan soo hoolay calashan geedkii wax lagu hooli jiray maalkas ama ma aqaan saa u taqaaniin adi toon aan soo jariyay camal aan ku darayaa waxaan kaloo kusoo darayaa ukun 2 xabo ah oo taatii labaadna ukuntaan kusoo daray intaasaan isku walaaqayaa aan rabaa inaan isku sameeyo inay isdhex galaan kadib saliida dabka sii saaraa oo kusoo shiila waana in tusaa qaabka u sameynayo qaabka u soo shiilayo iyo sidoo noogu soo baxo iyo wixii aan ku cuni rabno iyo waxa soo dhan waa in tusaaya insha Allah oo isdhex gelinaya halkaas aasana isoo dhex geliyay xawaashiyada iyo maraq macaankii lagu daraayay iyo ukuntii iyo burkii yaraasaan oo ku noqday markaan isku wada walaaqay sidoodan haddana aan ku soo dubayaa isla socod wanaagsan kana haddana saliida noo soo kulaatay dabka saartay waa soo dubanaynaa isla socod wanaagsan ujeediina umaleynaa soo noqonayo wax yar kadib waa gidinaya markuu yar gaduuto isku soo noqonaynaa waa kana haddana saano noo soo noqon malaaygeeni gaduud dahabi ah waa ka soo baxsanaynaa qaybaha kale aan gelinayaa insha Allah marka aan soo wada dubo iyo sidii noo noqdo waa isku soo laaban doonaa waxaa halkan kale noogu soo diyaarsan yaanyo yar iyo basal yar oo ku soo shiidayo makiinada cabitaanka waxiriis ah aan ka soo dhigayaa waxaan rabaa malaay qayb kamid ah inaan wax ooga suubsado ana idin socodsiin doono insha Allah intaan isku soo diyaarinayo soo shiiday malaay dibista waa soo dhameynay waxaan inta ku dalacanaa yaanyada iyo basasha aan ku soo shiiday iyo saliid yar waa isku soo shiilayaa insha Allah isla socod wanaagsan yaanyada waxaan u jeedin dheecaankeeda waaye inay gursataan rabaa wax yariis dheecaan uu dhalo kadib aan idin tusaaya wixii aan ku daraayo insha Allah haddana waxaan ku darsanayaa huruud iyo waxaan haystaa xawaasho la isku dardaro dhowr nooc ka samaysan oo shiidan intaasaan ku soo darsanayaa waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado qalkaan waa qalka tufaaxa ah aan kaasa isticmaalaa oo ka qaabku yahay kaasana jecelahay dhanka digaaga asama insha Allah ka dhigay macaan ah qalal kalena way fiican yihiin qalka cad iyo oo isticmaali kartaa ana qalkaana hal qaado ku soo darsanayaa qaandada mid kale qaandooyin kale ka weyn tahay zaidna ma uga badinaay dhadhankiisa inuu xoogaa zaidna ahayn oo dhexdhexaad yahay fiican qalka taasa isku soo walaaqday markuu intaanay soo gursado isku karo insha Allah isku soo noqonaynaa
waa kana yaanyada inoo soo gursatay dheecaankeeda saan oo dhamaaday way bislaatay cabaar karkareysay weli carafti oo basashii iyo qalkii iyo wixii aan ku dar xawashaasha soo carfaayo saana rabaa dheecaan zaid ma rabi maxaa yeelay bariis cadaan rabaa inaan ku cunno aan u sameysano dheecaankaas yarka ah marka malaayga aan ku soo dar qayb kamid ah aan ku soo sameysano marka saasa isku soo gudbinayna wax yar markay isku soo huuraan isku soo noqonayna kana hadan saas noogu soo gursaday oo isku dhaxmilmeen kabsar yar iyo reexaan aan kor ugu soo darsado qof wuxuu jecel yahay kor kaga darsado aan labadaas carftooda aan jecelahay aan kor kaga darsaday waxa mana soo tumin saamirkay yihiin qurux kaliya ka dhigaya markii weel lagu soo shubo marka saana ku soo dejisanayna isku dhamaatay hadana karis kale kaaga baahno wax kale kaaga baahno dhadhankiisa kullu isku dheelitiran yihiin wax alla waxa ku cuni kartaa malawax canjeero rooti hadi waxa jeceshaa bariis yar baasta xitaa daarto suugo ahaan u noqonaa wax yar oo baasta ku cuni kartaa ilaa dhowr qof oo yar isla socod wanaagsan kana hadana malaayga saan noogu soo dhamaaday midkii dubnaa waa kana saana soo dhignay kan kalena asna wuu dubnaa le waxaan ku dhex kariyay suugo yar oo dheecaan yar u yeelay bariis cadaan rabaa inaan ku cunno marka midna qaleelkan dad ku cunaayo midna dad qoyaankaan rabaan insha Allah idinkan soo tijaabiya oo u bogi doontaa malaaygan wax badan oo fudud yahay waana arki doontaan macaankiisa iyo dhadhankiisa soo tijaabiya daasaan u sameeysan noocyadii hore oo dhan oo iska iloowi doontaan insha Allah isla socod wanaagsan walaalaheen